iyada oo la maamuusayo maalinta caalamiga ah ee warbaahinta xorta ah ayaa waxaa laamaha VOA-da iyo hay'adda kale ee ay hoos tagto ee BBG waxa ay xusuusasho u sameeyeen Allaha u raxmadee wariye Cali Nuur Siyaad oo ahaa suxufi da'yar laakiinse noloshiisa ay soo gaabatay kana mid noqday dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay Soobe 14 bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay. Cali Nuur Siyaad oo ahaa wariye madax bannaan oo kaamiramaan ahaa kana barbar howlgalaya wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa ka mid noqday boqolaalkii dadka ahaa ee ku dhintay masiibadii qaraxii Oktoobar 14keedii ka dhacay isgoyska Soobe. Madaxa BBG John Linson ayaa waxa uu sheegay in gudaha daarta VOA-da 10 sano la soo dhaafay ee go'aansadeen inay ka dhisaan darbi lagu xusuusanayo wariyaashii ka baxay hay'adda ee dhintay ayaga oo shaqada ku guda jira kaasi oo sanadkii horeba lagu daray asna wariye Cali Nuur Siyaad magaciisa. Today, unfortunately, a 50th name is added to the wall, Ali Nur Siyaad. maanta nasiib darro magacii 15aad ayaa lagu daray derbigan xusuusta kaasoo ah Cali Nuur Siyaad. wuxuu ku dhintay Cali Nuur Siyaad isagoo ku guda jira hawlo shaqo oo VOA uu hayay waxaana lagu dilay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya bishii Oktoobar 14keedii sanadkii aynu soo dhaafnay. qaraxaasi argagixiso oo ahaa kii ugu waxyeelada badnaa ee Soomaaliya ka dhaca. si lamida sidaasi waxa iyadana ka hadashay kulankaasi Kelly Jow oo ah madaxa dhammaan luqadaha VOA-da. Is our Somali service cameraman, a father, a son, and a husband. Cali Nuur Siyaad waxa uu ahaa wariye dhinaca kaamirada VOA-da kala shaqeeyo. wuxuu ahaa aabe, xaasle iyo wiil la dhalay. wuxuu filim gareynayay markaasi warar ku saabsan Soomaaliya. Cali Nuur waxa uu la mid yahay sida wariyaasha kale ee dunida ee VOA-da mar kastaba naftooda u qatar galiyay si ay u hirgeliyaan hadafkeena. maanta Cali Nuur Siyaad wuxuu ku biirayaa saaxiibada kale ee darbigan xusuusta lagu dhajiyay waana meel lagu xusuusan doono kuwa naftooda u huray ayaga oo ah wariyaal ama ku guda jira howlo saxaafadeed. xuskan ayaa waxaa sidoo kaleeto ka mid ahaa dadkii goobjoogga ka ahaa wariyaasha laantan ee afka Soomaaliga ee VOA-da. Maxamed Colaad Xasan oo ku hadlay afka VOA Soomaali iyo maamulka matalayena shaqaalaha intiisa kale ayaa waxa uu yiri waxaan la wadaagaynaa VOA-da iyo hay'adda BBG ee VOA-da maamusha in xusuusta loo sameeyay wariye Cali Nuur waxaan leenahay xaaskii iyo caruurtu ka tagay Ilaahay badal qeyr qaba ha siiyo. waxaa kaloo la damqanaynaa maadaama ay tahay maalinta saxaafadda xorta ee adduunka wariyaasha kale Soomaaliyeed ama la dilay ama la dhaawacay iyana Soomaaliya ka howlgalayay ayaan sidoo kale xusuus gaara iyo damqasho gaara u muujinaynaa inagoo wada jira. waxaan leenahay xusuustu waa mid ka timid qalbigeena mid ka timid dareenkeena oo aan ahayn mid aan iska keenin laakiin aan dareemi karno xanuunka iyo damqashada iyo waxa aad ku shaqaynaysaan iyo culeyskeedan haysta. Ilaahay idin fududeeyo ayaan guud ahaan idin leenahay anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha iyo madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Naguse Mangasha madaxa qaybta Afrika ee VOA-da ayaa ku tilmaamay Allaha u raxmadee wariye Cali Nuur Siyaad inuu ahaa suxufi xirfad yaqaan ah oo ay ka gooneed inuu meel mariyo howsha uu hayay warbaahinta iyada oo wariyaasha Soomaaliyana ay ku shaqeynayaan ayuu yiri marxalada aad u adag. Today we are commemorating the dedication of Ali Nur Siyaad. We really lost a dear friend who has been committed gallant. maanta waxaan xusaynaa Cali Nuur Siyaad waxaana xaqiiqadii aan weynay saaxiib rumaad oo ahaa saxafi xirfad yaqaan ah oo dhiifoon waana maalin aan runtii qalbi jabsannahay. waan ognahay Soomaaliya iyo meelaha u dhow wariyaashu waxay ku shaqaynayaan xaalad adag oo khatar ah. mas-uuliyiintii ka hadlay kulankaasi xuska xusuusashada ee wariye Allaha u raxmadee Cali Nuur Siyaad ayaa sidoo kaleeto dadkii ka hadlay waxa ay ku soo hadal qaadeen wariye Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla oo isna ka howlgalay magaalada Muqdisho kana mid ah wariyaasha VOA-da oo isla qaraxaasi Oktoobar 14keedii ku dhaawacmay kaasi oo muddo bil ah oo dhaawaciisa lagu soo dabiibay dalka Turkiga kadib dib howlihiisa shaqo ee Muqdisho ugu soo noqday. Cali Nuur Siyaad oo ka mid noqday dadkii boqolaalka ahaa ee ku dhintay qaraxaasi ayaa haddaba ahaa aabba ka tagay ilmo iyo xaas uu lahaa.